kulanti habboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaaba halkaana waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ugu waaweyn intaad muuqaalka daawanayso waxaa halkan kugu soo gudbin doonaa basaasiin u dhashay Israa'iil oo lagu dilay gudaha dalka Lubnaan hadaba sidee ku suurto gashay in basaasiintaas la ogaado isla markaana si toos ah loo toogto xogaa soo dhameystiran muuqaalkan ay idinkugu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo rajo xumo ka muujiyay dhamaadka dagaalka ka soconaya bariga dhexe muuqaalka ay idinkugu soo gudbin doona wareysi uu siiyay Al Jazeera xogaha soo dhameystiran iyo faahfaahin kale ayaa halkan kugu soo gudbin doona dhinaca kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu qaaday talaabo ka careysiinaysa ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil muuqaalkan ayaan kugu soo gudbin doonaa xogaasi wixii kale nagu soo kordho inta daawanayso haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana furasay ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay like inoo sar soo gaara asxaab badan waad ku maasanta daawashadaada aynu ku bilaabno wargeyska The Wall Street Journal ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo la taliyaashiisa in ay diyaar u yihiin inay soo afjaraan howlgallada military ee ka dhanka ah Iran xitaa haddii marinbiyoodka Hormuz oo weli inta badan sii xirnaado Iran ayaa waxa u xiran marinbiyoodka muhiimka u ah ee isku socodka ee maraakiibta shidaalka iyadoona halkaasi cunaqabateen xoogan ee ka saartay Israa'iil sidoo kale iyo wadamada Khaliijka Carabta waxaana halkaasi ka dhashay in sida shidaalka uu sarkac xoogan uu ku yimaado maadaama maraakiibtii shidaalka iskaga gooshi jirtay marinbiyoodka Hormuz kaasi oo boqolkiiba 99.9 maalintii halkaasi ay mari jireen sida ay sheegeen saraakiisha maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo kooxdiisa waxa ay gaareen go'aan isku day in dib u furista marinbiyoodka Hormuz uu muhiim u yahay kordhinta dagaalka ka dhanka ah Iran kana dheeraan karaan muddada uu doonayo in lagu soo afjaro dagaalkaasi oo ay ugu talagaleen ugu badnaan inuu socdo 4 bilood ilaa 6 bilood balse dagaalka ayaa u muuqda in waqtigii ay rajeynayeen Israa'iil sidoo kale Mareykanka in uu ka sii dheeraan karo maadaama in Iran ay diiday wada hadalka iyo sidoo kale wada xaajoodka ay dalbanayeen Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil qorshaha Mareykanka ee Israa'iil markii hore waxa uu ahaa in ay duulaan qaaban ay ku qaadaan Iran iyadoo bartilmaameedkooda muhiimka u ahaa dilka hogaamiyihii ugu sareeyay ee Iran Ayatollah Ali Khamenei kadib guushaasi markii ay gaaraan in ay soo afjaraan dagaalka balse way u suurtagali weysay damacoodii ahaa soo afjarida dagaalka oo Iran waxay ku adkeysatay in marnaba ay heshiis ay ka gali doonin ilaa ay inta ugu argudeyso hogaamiyihii ugu sareeyay ee Iran Ayatollah Ali Khamenei iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsaneed Iran kuwaas oo ku geeriyooday duqeymihii Israa'iil iyo Mareykanka ay sida wadajirka ugu fuliyeen gudaha dalkaasi Iran cadaadiska diblomaasiyadeed ayaa la filayaa in uu sii socdo si dib loogu furo wadooyinka ganacsiga xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa wareysi uu siiyay Al Jazeera waxa uu ku sheegay in marinbiyoodka Hormuz dib loo furi doono wuxuuna intaasi ku daray in marka Mareykanka uu gaaray yoolkiisa haddii ay Iran ay sii wado xiritaanka marinbiyoodka Hormuz waxayna u muuqataa in Mareykanka xilligan uusan ku guuleysan doonin furista marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz taas oo Iran horey wacad ugu martay in markabkii halkaasi soo mara ay gantaal ay la beegsan doonto iyadoona horey ay u dhacdayba in maraakiib isku dayay in halkaasi ka gooshaan ay Iran ay ku dhufatay gantaalo halkaasina uu ka dhashay khasaare xoogan oo sababay in markabka shidaalka saarnaa uu halkaasi ku burburo haddii aan eegno ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa rajo xumo wuxuu ka muujiyay dhamaadka dagaalka xilligan ka soconaya bariga dhexe isagoona sheegay in uu u qiyaasi karin waqtiga dagaalkaasi uu dhamaan doono maadaama Mareykanka ay sidoo kale Israa'iil go'aankoodii uu faraha uu ka baxay oo Israa'iil Iran ay ku adkeysanayso si socodshada dagaalka iyadoona sheegtay in haddii dagaalkaasi oo socdo muddo sanad ka badan ay diyaar u tahay Iran in dagaalka uu sii socdo isla markaana ay haysato
hub ku filan iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka. intii uu dagaalka socday Israa'iil sidoo kale Mareykanka waxaa soo gaaray jab culus iyagoona sidoo kale laga burburiyay warshadaha sifeeya ee saliidda sidoo kale shidaalka ku yaala magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil iyadoona sidoo kale Mareykanka cagta laga mariyay saldhigyada waaweyn ee uu ku lahaa bariga dhexe sidoo kale qaybo kamid ah wadamada khaliijka carabta. Netanyahu waxa uu sheegay in dagaalka uu si dhab ah ugu gudbay rajadii dhamaadka isla markaana jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay ugu dambeyn gudaha Israa'iil ay ku burburisay goobo muhiim u ah Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in rajadiisii ugu weyn inay ahayd in dagaalka toddobaadyo kadib la soo gabagabeeyo balse ay suurtagali weysay damacoodii ahaa in la soo gabagabeeyo dagaalka maadaama ay qorshahoodii ugu weynaa kaliya uu ahaa dilka hogaamiyihii ugu sareeyay Ayatollah Ali Khamenei kadibna ay diyaar u ahaayeen inay galaan wada hadal iyo wada xaajood oo ay la galayaan Iran iyagoona horey u damacsanaa in Iran ay isku soo dhiibi doonto kadib markii hogaamiyaha la dilay balse Iran ay ku adkeysatay in booskiisa ay shakhsi kale u magacaawday kaasoo ay ku sheegeen in uu buuxin doono boos walba oo ka banaan Iran oo ugu jiray hogaamiyihii ugu sareeyay ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran ayaa markan waxay noqotay wadan laga cabsado gantaalidiisa iyadoona 48 saac ee la soo dhaafay Iran ay duqeymo ba'an ay ka fudisay qaybo kamid ah magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil iyadoona bartilmaameedyo gaar ah ay ku dhufaneysay gantaaladeeda. Raadeelka Israa'iil ayaa awoodi waayay inuu hawada uu ka celiyo diyaaradaha dagaalka ee Iran iyo sidoo kale gantaalada nooca balastikada oo Iran muddooyinkii u dambeeyay ay si aad ah ugu isticmaalaysay inay ku soo rido diyaaradaha uu soo saaray Mareykanka iyo sidoo kale duqeymaheeda bartilmaameedka ay ka fulinaysay Israa'iil. xaaladda bariga dhexe guud ahaan waxay noqotay mid aad u kacsan iyadoona si isdaba joog ah halkaas ay ugu dhacayaan duqeymo ay fulinayso Iran waxaana maalinta ka dambeysa xaaladda bariga dhexe ay noqonaysaa mid jahwareersan. dhinaca kalena ciidanka difaaca Israa'iil ayaa sheegay in 2 askari looga dilay sidoo kalena 2 kalena looga dhaawacay koonfurta dalka Lebanon sida lagu daawacay qoraal la soo dhigay barta Telegramka kaasi uu soo dhigay Captain Noam Madmiya oo 22 sano jir ah. waxaa lagu sheegay in saraakiisha la dilay da'dooda ay u dhaxaysay 21 ilaa iyo 22 waxaana la sheegay in xilligan labadii la dhaawacay xaaladooda caafimaad la dabiibayo. 2 qof ayaa sidoo kale loo qaaday isbitaal halka mid kale lagu tilmaamay in dhaawiciisu uu yahay mid aad u daran. wixii xoogay ku soo kordhay la xiriira macluumaadkaasi muuqaaladeena xiga idinkugu soo gudbin doona. haddii ay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelka nafro si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga. haddii subscribe inoo tahay muuqaalkeena share gareey like inoo saar si oo gaara